walaalayaal sidaa dareemayseen khudbadeena waxay ku saabsan tahay الشعور بالمسؤولية وخطرها إلى أن درينه حلكة يا علايس كلية يا خطرتك حيرا موضوعها waxay nu soo qaadanay Soomaaliya meel ay joogtaba kursi baa wardaysa mid la dooranayo mid doorasho diyaaro ah mid la dabada ii saara mid hadii uu waayay xanaaqa iyo carahayso cirka maraya isaga iyo qabiiladiisuba idan arintani halka ay ka joogto islaamka iyo dareenka qofka muslimka ah ee hamigiisu caafimaad qaba sidoo uu dareemayo islaamku u qiimeeyay ayay tahay inaynu garanno si markaa qofka ama cidii sidhinku ku dalacmi lahaa ee kululaan lahayd kadeedmi lahayd isaga nasato ay aragtaba in culays dhaafayba shucuurka ama dareenka la doonayo qofku inuu mas'uuliyadda dareemo ilaa 7 qodob baynu ka xusi doonaa ka horeeya waxa weeye qofkan ugu horeyn inuu dimadiisa iyo dushiisa bari yeelo si aan loo tuhmin si aanu ceeb uga qaadin sidaa daraadeed waxaa jiray taariikhda islaamka iyadoo lagu dadaalayo mabda'a qofku inuu isbari yeelo إفساح المسؤول عن ثروته قبل توليه المنصب قفك waxa la oran jiray wixii aad xoolo hayso intaanad xilka qaban xisaabi waa inuu xisaabaadka guud u sheegaayo laga qoro wixii xoolo haystay si aynu kala garan karno wixii uu xaday iyo wixii xoolo si haystay yaa la xisaabiyaa taayimka maya Allah wila badi wuxuu yaqaan lama oga hatta wax kala daayo ummadaha shisheeye gaaladaaba qora si loo garan karo waxaan muxuu qofku hore u haystay muxuu ummadda ka qaatay Umar ibn Khattab Allah ka raali noqdo madaxdiisii gobolada saas uu la dhaqmi jiray waraaqbu qorayo wuxuu la hadlay madaxdii gobolada Sham inkii ciidamada haystay Khalid ibn Walid inkii Masar iyo Falastiin haystay Amr ibn Aas Muawiya oo isaguna maamulka Dimashq iyo ardu Sham haystay waa asxaabti wuxuu leeyahay hore waxaan idinku ogaa inaa mushahar qaadataan الرزق الأول بالي mushaharkii hore inuu isku ogeyn hadaa ku shaqeynaysaana shaqada sii wada hadii kororsiimo doonaysaana shaqada iska casila Khalid uu is casilay markaa waraysan garay labadii asxaabiye kale waxay dhan shaqada waa sii wadayna haddaba hadaa sii wadaysaan soo qorab u xoolo waxa haysataan muddo markay joogaanba waa la xisaabin jiray wixii ku kordha xoolahooda baanka loo leexin jiray caadada Umar bay ahay meeday dhaqankaas waba lagu faanaya barbaraanaya ka dhacay wixii uu helay qof maxaad heshay saaxiibadiisii iyo ehelkiisii waxay leeyihiin maxaad soo kordhisay meeshii caanaha lahayd ee joogtay maxaad ka cuntay ama xisaabta noocaasi kumay gooni ahayn saxaabada ee waa miduu nabigu jideeyay sallallahu alayhi wasallam ku rabeeyay laynaga doonaya raadka qiimaha badan inaynu raacno nin kamid ah reer Asdi oo ibn Lutbiya la oran jiray buu nabigu diray wuxuu yiri orada qolada reer Bani Sulaym ka soo ururi sakadii uu soo ururiyay markuu yimi nabigu uu la fariistay oo isaga la xisaabtamay baxaad soo xaraysay maxaa baxay warkiiba uu soo ururiyay wuxuu inta idin kaale muslimka daati intaana aniga la isoo hadeeyay aad buu nabigu xanaaq isagiina uu jawaabay oo wuxuu ku yiri maad gurigii aabaha iyo hooyada fariisatida adeegtid balin wax lagu soo hadeeyay in kale ummadiina iclaan buu samsiyo minbarka ayuu ka hadlaya wuxuu yiri maxay ku dhacaysa qof intaan shaqo u diro in wixii uu sida uu farraaraw yeelo oo raa intana idin kaale intana aniga bal guriga hooyadii iyo aabihii muu fariisto oo eega inuu hadiyad heliyo in kale luqad adag buu nabigu ku hadlaya dad nin ku tira hooyada iyo aabaha waxa uu sheeg oo ilaa hooyadii gaadh arin adag weey iyo aabihii iyo waalidkiisa taa macnaheedu markaa waxa weeye shaarkii ummaddu gashan yahay hadiyadna looma keenan lamana hadleen qofkan hadaanu xil ka hayn markaasay dadku ku soo ururaanay xudxutaan
idan markaa qofku dummadiisa waa inuu bari yeelaayo qofka imika inuu waxada aan doonayn waa inuu ummadda isla soo hortaagaa war waxaasaan sii haystaa igu ogaada imikaba intaasoo guri baan leeyahay intaasoo gaari baan leeyahay intaasoo lacag baan leeyahay sii ogaada cid yidhi ma hayno dee waa inay idhaahdaan waxaa ka mid a shucuurkaa inuu ogaado qofku annahu sayus'alu can ilmas-uuliyati amaama allah uma amaama annaas waxaan in su'aali ka dambayso qofku waa inuu gartaa oon sidan lagaga hadhaynine la isku soo noqon doono oo ilaahay uu weyddiin doono aakhiro ummadduna la xisaabtami doonto dadku aanay wada dhegala'ayne dad dhagaha iyo indhahaba u baxsan yihiin oo taariikhda ummadda iyo mas-uuliinta qoraya inay jiraan iminkana wax la duubo oo qofku dee rikoodhkiisa uu yaallo iyo kaydkiisa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiid kaga ansaxay inuu yidhi laa tazuulu qadama ibni aadam xataa yus'ala can arbac markuu xabaasha ka soo baxo aakhiro qofku maba dhaqdhaqaaqi kara ilaa su'aalo afara loo dhiibo waxaa ka mid ahaa xoolihiisii xaggaad ka soo shaqaysatay xaggaadse ku bixisay bal hadda jawaabtaad ilaahay siinaysa diyaarso intaad adigu u ordayso waxbaan doonayaan cunayaa ilaahay maxaad ugu jawaabaysaa subxaana wa tacaala arrinta saddexaad shucuurka la doonayaa waxa weeye allaa yakhaafa fillaahi lawmata laa'im qofku markuu xilka fuulayo ama aan idhaahne kursi u socdo mas-uuliyadaha golayaasha mas-uuliyadaha hay-adaha madaxa banna mas-uuliyadaha caamkaas sida madaxweyne oo kale markuu u socdo waa inuu ku talagalaa inuu codkiisu noqdo mid baxa mawaaqifta mowqif kastoo yimaado mid caam iyo mid khaasa mid caalami iyo mid maxalliya waa inuu wixii wanaagsanna la saftaa wixii xunna diidaayuu ka saftaa oo mowqif uu yeesha haddii gaalada iyo islaamku isqabtaan haddii xumaan ay waddanka ka dhacayso haddii wax mushkilad la soo wado wax walba waa inuu mowqifkiisa caddeeyaa oo xilku waxyaabaha uu keenayay mutadallabaadkiisa ayay mas-uuliyadda ka mid qof intuu xil fuulo dabeetana inoo khuuriyo aamusoon mawaaqif lahayn ilaa ummaddii buu matelayaa sax maaha nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan oo ka ansaxay khudbaddii dheeraydee muxaadarada dheerahaydee maalinka dhan uu ka hadlayay waxaa ku jiray alaa laa yamnacanna rajulan haybatuhu nnaas an yaquula bixaqin in calima aw idaa calima waryaarahan yay dhicin qof ummadda xilu hayaa intuu xaq ogaada inuu ka aamuso shaygii xaqa ahaa inuu sheegi waayo o caddayn waayo taasi yay dhicin abi saciid alkhudri waa kii ilmeeye lahaa intee baanu xaq ka aamusnay ayaanu sheegi lahay maxaanu dad ka haybadaysnay marka haddaad gaalada ka haybadaysto haddaad reeraha ka haybadaysto haddaad shakhsiyaadka ka haybadaysto calaa xisaabi diin adigoo mowqif qaadan lahaa oo ummadda wixiisan u muujin lahaa oo tasriix bixin lahaa maxkamadda ilaahay baa taaganta marka shucuurkaasi waa inuu jiraa waxyaabaha uu qofkii dareemaya waxaa ka mida inuu ku talagalo an yakuuna qariiban min annaas markuu madax noqdo inaanu dadka ka libdhine uu u muuqduu ka agdhowaado dad baa soo doortay xil baa lagu maamuusay ammaanaa loo dhiibay ummaddaa wada lahayd waa inuu iyagii ka agdhowyoonu ka fogayn waxaynu aragnaa dad libdha uun marka mas-uuliyad loo dhiibaa buu odhanaya layma arko layma soo dhowaado boodhigaadhadiisaa badanaya telefoon ma qabanayo ballan meel looga ashkatoodo wixii dhibaha jira ma laha gaaladu waa adiga arkayoo madaxweyne hadduu yahay telefoon buu samaysanayaa hotline oo dadku kala soo xidhiidhaan oo dadka had iyo jeer hor joogaa aanay soo marin baa la sameeyaa golayaasha dadkii soo doortay dhexdooday ka samaystaan xafiis cabashooyinkooda ay ku qaabilaan nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo taa ka hadlaya wuxuu uhi man wallaahu allaahu caza wajalla shay-an min almuslimiina faاxtajaba duuna xaajatihim wakhallatihim wa faqrihim ixtajaba allaahu duuna xaajatihi wa khillatihi wa faqrih qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan xili ugu dhiibo ee albaabka ka xidha baahidooda iyo muraadkooda ayuu albaabka ka soo xidhu uhi layma arko aygu daalina ilaahayna albaabku ka soo xidha ayuu nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay ma arki doono maalintay mu'miniintu arkayaan waa waciid iyo goodi weyn iyo arrin adag weeye marka qofka xilka u ordaya ha ku sii talagalo shucuurka ha yeesho arrinta shanaad waxa weeye inuu qofkani ogaado xurmat alqish ummadda mas-uuliyadahooda iyo maamulka iyo ammaanada iyo maalka inuu daacad ka ahaado ila waa kii kolkii horeba kitaabka ku sii ordayey
kitaabkii wuxuu noqday wax kursiga lagu fuulo inaan daacad u ahay ayuu mid waliba cod dheer ku dhawaaqayaa diinta iyo dalka iyo dadka waxaas u akhriyaya waa inta uu ku dhaafaya uun mas-uuliyaddaa intuu qabanayo way xilkaa fuulayo ayuu dhaartaa maraya idan markaa ummadda waxeeduna xaaraan yahay waa inuu ogaadaa inuu macnaha si khayru sharciya ku qaato nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo taa ka digaya wuxuu idhi maa min waalin yali raciya min almuslimiin fayamuutu wahuwa gaashun lahum ilaa xarama allahu calayhi aljanna xadiidku waa sugan yahay hadday dhacdo qof muslimiinta xil u qabto oo dabeedna dhinta isaga oo qishay macnaha waxa weeye waxoodii curay oo boobay oo khiyaameeyey oo qabyaalad iyo eexiyo ku dhex daray xumaan hadday taasi dhacdo jannada ilaahay waa ka xijaabaa buu nebigu marka waxaad kala dooranaysaa xoolaha inaad ummadda xaddo iyo inaad jannada hesho labadaas umaad kala dooranaysa xilkan kol haddaad qaaddo xatooyada iska ilaali nin xukamada ka mid a baa wuxuu yidhi waxaa jira buui laba tuug waa tuugan caadigaa buui ee shakhsiga markuu wax ka qaato dee la cararaya isqarinaya wa haadaa saariqa caadi tuug caadiya baa la ydhaha dad ku wada yaqaanaa waxaa jira buu idhi saariqun siyaasiyu tuugga siyaasiga ah isaga tuug loogama yaqaano waxay ku kala duwan yihin buu laba arrimoodoo cajiiba ta u horraysaa waxa weeye tuugga caadiga ah yakhtaaruka wa yatlubuk isagaa ku soo doonanayo ku dabagelaya ilaa waxaaga xadayo laakiin tuuggan kale ee siyaasiga ah anta tadlubuhu wa takhtaaruhu adigaa doonanaya oo dooranaya buu meana xigmad ahayn adigaa ilays ku raadinaya oo lacagtaada ku bixinaya oo reer hebel ku wada oo xisbi ku wada waa saariq siyaasi kabiirulqowm weeye saariqa markaa ninki waad raadsanaysaa tuuggaa kharash baad ku bixinaysaa waad dooranaysaa darajaad saaraysa waanaad ogtay inuu ku xadayo wuxuu xadaya kaa hore xoolo kooban buu xadee kani mustaqbalkaaga iyo kii carruurtaada iyo kii ummadda wixii o dhan wuu xadaya waa faariqa udhexeeya faariqa labaada ama waxa labaada u dhexeeya ka sii cajo badani waxa weeyaan buu tuuggan isaga caadiga qof gaara wax ka xaday xukuumadu way kula raadinayaan waa la baadi doonaya si loo soo xidho laakiin saariqa siyaasiga ah xukuumadahaba ilaaliyaba oo xukuumadiba in badan oo ka mid ihi suraaq siyaasiyuun noqdeen marka cid kuu qabanaysaana ma jiro waa adiga arkaa waxaaba jira waxa la yidhaha xasaana diblomaasiya ilaalin lama taabtaan baaba qofkii uu noqonaya idan markaa waa arrimo u baahan in aad uu qofkii ugu baraarugo uu ilaahay nadar la galo inuu daacad ka yahay oo aanu dadka waxooda wuxuu ugu dara mooyaane waxba cunayn wixii aan loo ansixin aan la ogeyn waxa ka mid a wuxuu shucuurayuu ku sii talagalayo an yuufiya alcuhuud walmawaaciid inuu ballamaha oofiyo adiga arko mid waliba wuxuu leeyahay intaasaan samaynaya waxaasaan qabanaya waxaa ha laygu ogaado waxaasaa inoo ballankiinee ballankaa haddaad ka baxda maxaa dhacaya sidaa ummadda aad ugu fashilantay ilaahay agtiisana waad ugu fashilanta kaadhkaagii wuu gubtay qowlkaaga dambe la rumaysan maayo waxna lagaa qaadan maayo shakhsiyaddaadiina way dhimatay nebiyullaahi moxamed wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasallam waa xadiid saxiixa alaa innahu yunsabu likulli qaadirin liwaanu yowma alqiyaama biqadri qadratihi walaa qadrata acdamu min qadrati imaami caamatin yurkazu liwaa'un cinda isti ay yowma alqiyaama qofka ballamihii adduunyada ka bixi jiray maalinta qiyaamaha iyadoo ilaahay uu fadeexadaynayo calan ayaa loo taagaya haddii ballanfuryadiisu ay badnaydoo ballamaha aad uga bixi jiro khaa'in weyn u ahaana calama fara badaan buu leeyahy oo ay ku qorantay ballanfurkii hebel ama heblaaye hebel ayaa halkaa ka muuqanaya xaggiisa dambea laga taagaya gabadhida waa adiga arkay gaadhilan kurusaroo cararayo calan xagga dambe ka taagan yihin calaamadaasaa ilaahay ka muujinaya soomaalida waxaad haysee mas-uuliyiinta imise calan bay leeyihin ilaahay unbaa garanaya subxaana wa tacaala waa mushkilad muslimka oo dhan haysata waxaa ka mid a waxyaabuu shucuurayo qofku ay tahay inuu ku sii tala galo mas-uuliyaddan iyo xilkani khatarun calaa diini inuu qofka diintiisa iyo xidhiidhka isagiiyo ilaahay u dhexeeya uu khatar ku yahay maalkaad ku hordaysa iyo mansabka iyo manfacaad is leedahay bal aduguna hebel wuu qaatay oo reer hebel way qaateena bal aduguna imika taabo hadda khatartuu leeyahay iyo xilkaad fuulaysaaba
nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi qofka bani aadamka sida maalka iyo kursigu uu uga fasahaadiyo diintiisa ee uga kharibo way ka daran tahay sida bahalku ariga u baabiyo waa laba waraabe ama weere ama iyay waxaa doonto dheh oo lagu sii daayo ari xero ku xaraysan meel uga cararo ma hayo mid markuu dila cuni maayo dhammaan wada laynaya arigaas siduu bahalkaa xerada loogu xareeyey u baabi'iyo qofka diintiisa saas ka daran waxa uga baabi'inaya mansabka ama madaxnimada iyo maalka uu ku ordayo intaynu aragnay qof miir qabay oo iskaba wanaagsanaayo aad afgaran weyday markuu libdhuu halkaa fuuray war hebelkan miyaanu kii ahayn maxaa mawaaqiftiisii beddelay maxaa aragtidiisii iyo aqoontiisii u kan madoobaaday qofkii marka waa inaad ogaataa waxaan lagu ordayaa inuu khatartaa leeyahay hadday diintu kaa xumaatana waxa aad dhigtay iyo dunyo iyo dal iyo midna waxba kuu tari maayo shayga raasamaalka aynu ilaashanaynaa waa diinta iyo xidhiidhka innagiyo ilaahay naga dhexeeya subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed baa asxaabtii iyo dadkii saalixiinta iyo qofka haddii xil loo dhiibayo way ka carari jireenoo way ka cudur daaran jireen ama waa ka murugoon jireen cumar ibni cabdilcasiis madaxweyne caadilkaa muslimiinta allah u naxariista raximahullah markii xilkii madaxweynenimada ummadda loo dhiibay xaaskiisu waxay u timi isagoo dhabannada haysta halka dadku barbadhaadhan ay ka qaadanaya ka farxayaane la hambalyaynayo ee la ordayo iclaamka lagu qorayo hambalyada isagu dhabannadu haystaa maxaa dhacay bay jir maxaad la warwarti waa xaaskiisii qiimaha badnayd ee faatima ee la jaan qaadaysa xagga khayrka waxaa la ii dhiibay buuha dusha layga saaray xilkii ummaddana waxaa ka mida buuhi mid faqiiro aad u baahan iyo mid bukaana oo xanuun la ildaran iyo mid qaawan oo dhar u baahan iyo mid madluumahoo wax u hiiliya u baahan iyo mid musaafir oo wax taakuleeya u baahan waxaasoo dhanna qiyaamaha anigu ilaahay weydiinayaa buui marka sidaan su-aashaa uga bixi lahaa ayaan la warwarsanahay oo aan ka fikirayaa buui uma baka dabeetana waa ilmeeyey sidaasoo kale arrinta toddobaad waa inaad ogaataa mas-uuliyadda iyo xilku inuu kala duwan yahay oo haddii adiga laguu garto oo lagugu riixo sidaa cumar ibnu cabdilcasiis iyo rag la mida loogu riixayo xilkii loogu dhiibayey inuu ilaahay ku garab taagan yahay haddaad kaambayn u gasho adugu aad u xiiqdood u orodayna inuu ilaahay garabkaaga ka baxayo oo adiga lagugu hadlaynayo sidaasuu ku caddeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii asxaabiga markuu la hadlaya wuxu uhi haddaad dalabto oo aad doonto oo aad u dadaasho ilaahay wuu kugu hadlaynaya waa lagaaga hadhaya haddii adiga laguu gartana ilaahay waa kugu icaanaynaya wuu kugu saacidaya maxaad u malayn in ilaahay garabkiisa ka baxa waxay u badan tahay in shaydaan soo gala meesha idan arrintaasina waa arrin kale oo khatarteeda lahoo shucuurkaaga iyo dareenkaagu waa inuu noqdaa adigu ma kii la riixaad ahayd mise kiisa soo riixay ee ummadda hor yimeen lacag fara badan guryihii soo xaraashay ee jagooyinkii soo xaraashay doonaya dadkan wixii uu kolkii hore ku laaluushay inuu isaguna laaluush kaga qaato keebaad ahayd waa inuu isqiimeeyaa talow ilaahay ma garabkaagu ku jira mise garabkaagu ka baxa talow niyaddaadu waa maxay talow maxaad u socotaad doonaysa talow maxaa ka dambeeya cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu wakhtigii uu madaxda ahaa sida saxiixu muslim ku sugan ayaa ninkii la odhan jiray cutbat ibnu khaswaan asxaabigaas wili waxaan kuu dhiibayaa meesha laydhaa basra dhul ballaadhan ahayd oo dhul caasimad ahayd oo dadka qaarkood jeclaanba lahaayeen xilkeeda in loo dhiibo uu ka cudurdaato wuxuu uhi iga dah xilkaasi waa igu culus yahay iga dah bal hadda caalamka saxaabadiiyo dadkaynu ku daynayna ay marayeen iyo halkaynu maraynowne markuu aad ugu celceli cumarna wuxuu eegayaa qofkan iga daalihi waa qofka danta ummadda haya kan igu daralihina waa kii danaysanaya dadkii ku munaasibka ahaa buu doondoonayaa cumar allaha ka raali noqda labadoodaba markaa cumarna dee amar buu siiya wuxuuhi waad qabanaysaa sidii buu ku qabtay khudbad dheer buu jeediyey markii ugu horraysayoo adduun iyo aakhiraba uu kaga hadlay wuxuu ku soo gebagabeeyey ilaahay waxaan ka magan gelayaa an akuuna cadiiman fii nafsihi wa sagiiran cindah ilaahay waxaan ka magan gelayaa inaan noqdo mid isla weyn oo naftiisa agteeda ku weyn ilaahay agtiisana ku yar cumuuman walaalayaal waxaynu leenahay toddobada arrimood waxaynu ku baraarujinaynaa
waxa dhacaya faraha badan iyo dadka xilka loo wado iyo kuwa soo baxaya iyo kuwa hadhaya shucuurkan iyo dareenkan qof waliba waa inuu yeeshaa ku talagala adduunyadu waa ayaamo maantun maahee talow maxaa isbedeli doona talow taariikhdaadu maxay noqonaysaa talow islaamku muxuu ka yidhi talow maxaad mutaysanaysa asaynu baraarujin lahayn allah inagu anfaco اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة